dadka qaar ayaa suga sanad cusub si isbedel ugu sameeyo ayagoo u malaynaya in sanadka cusub uu wato mucjisooyin bedelaya fikirkooda guulna ku gaari karaan. uma malaynaya in arrintani shaqaynayso maxaa yeelay 95% guuluhu waxay ku yimaadaan habfakarkaaga ee ma ahan kuwa ay keento taariikh ku qoran kalandarka. haddii uu jiro hadaf aad ku fikirto aad dhab ahaan aaminsan tahay inaad gaarayso aad gaaraysaa. haddiise aad aaminsan tahay inaadan hadafkaasi gaari karin amaba shaki kaaga jiro gaaristiisa waxaa hubaala inaad ku guuldaraysan doonto gaaristiisa. sida ay diinteennu inoo sheegtay bini'aadamku alle waxa uu siiyey awoodo maskaxeed oo qarsoon. arrintan ayaa waxaa caddayn u ah xadiiskii nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay uu ku yiri khayr niyeyso waad helaysaaye, taasoo looga tusaale qaadanayo haddii uu niyadaada wanaag ku jiro waxaad helaysaa wanaag, haddii ay xumaan ku jirtana sidoo kale. waxaa kaloo tusaale noqon kara xadiiskii uu nabigeena yiri eebbe waxa uu u dhow yahay waxa uu addoonkiisa ka malaysanayo. haddii uu khayr yahay wuxuu noqon doonaa khayr, haddii uu shar yahayna wuxuu noqon doonaa